wafdi ballaadhan oo hogaaminaya gudoomiyaha gobolka saaxil ayaa socdaal maalmaqaatay ku tagay deegaanada kala duwan ee hoos yimaada degmooyinka Sheekh Godaweyn iyo weliba degmada Berbera waxaana gudoomiyaha socdaalkiisa ku wehelinaya xogayaha dawladda hoose ee Berbera iyo xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka iyo mas'uuliyiinta hay'adaha laamaha dawladda ee Berbera ujeedada socdaalka wafdigan ayaa ahayd xoggaal noqoshada iyo wax ku ogaanshaha xaaladda guud ee deegaanadaasi waxaana ay wafdigan ay socdaalkooda ay ku bilaabeen degmada Sheekh iyo tuulooyinka hoos yimaada degmadaasi ee sida Galooley Dawdama Gidheys Gugux Cagaarey iyo sidoo kale Suuqsade iyo deegaano dhinaca bari kaga toosan degmadaasi Sheekh oo dhamaantood si weyn loogu soo dhaweeyay wafdigaasi oo hogaaminaya gudoomiyaha gobolka Saaxil waxaana sidoo kale ay ugu xog warameen xaaladda guud ee deegaanadaasi iyagoo tilmaamay inay guud ahaan xaaladda deegaanadaasi ay wanaagsan tahay isla markaana ay roobab ku heleen iyagoo mas'uuliyiintaasi kala duwan ee deegaanadaasi u soo jeediyay mas'uuliyiinta gobolka iyo waftigaasi uu helisa in loo dhameystiro adeegyada dhinaca bulshada ee sida caafimaadka biyaha waxbarashada lagana taageero sidoo kale dhinaca amniga oo ay tilmaameen in deegaanadaasi ay si xoog leh ugu baahan yihiin waxay sidoo kale dadka ku dhaqan deegaanadaasi ay ka cabanayeen boholo ama godad ay qodeen daadadka ka dhalanaya roobabka kala duwan ee ka daacay deegaanadaasi gudoomiyaha gobolka Saaxil Cali Maxamed Cilmi oo dadkaasi la hadlayay ayaa tilmaamay in socdaalkoodan uu daba socdo socdaal kala duwan oo ay ku gaala bixinayeen jiidaha iyo deegaanada kala duwan ee gobolka Saaxil isla markaasina ay xogogaal ugu noqonayeen xaaladda dadka iyo dunyada ku dhaqan deegaanada gobolka isagoo tilmaamay in socdaalkoodaasi ay ku indheynayaan duruufaha kala duwan iyo sida ay u kala daran yihiin degmooyinka iyo tuulooyinka gobolka Saaxil waxaana uu dadkaasi u soo jeediyay inay la shaqeeyaan xukuumadooda isla markaana ay xukuumadda Soomaaliland ay ka go'an tahay inay bulshadeeda wax u qabato gudoomiyaha gobolka Saaxil Cali Maxamed Cilmi ayaa waxa uu sidoo kale uu dadkaasi u soo jeediyay inay si weyn u soo dhaweeyaan hay'adaha macdanta ka baaraya dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo sidoo kale dadkaasi u sheegay in la soo gaarsiin doono mucaawanada dalka Turkiga ku deeqay dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland qaybtii ay ku lahaayeen isla markaana la gaarsiin doono deegaanada kala duwan ee gobolka Saaxil waxa weeyaan waxaana loogu tala galay in ummadda la ogaado waxa ay ku sugan tahay baahiyeeda asaasiga oo aan xafiiska loogu soo waramin ee loogu tago halkay joogaan isla markaan cod laga doonayo iyadoo cod laga doonayo loo yimaado marka codka laga doonayo ma inta badan leeydi yimaada dawladda systemka waa la bedelay waxaan la door biday oo la qaatay barnaamij cusub oo la magac baxay in aanu ninku noqonin in xafiiska loogu soo waramo maamulkii dhammaan tago goobaha uu dadku ku nool yahay iyo waxay qabaan taasaa kowka waxa weeyaan mid waanu idinka ballan qaadaynaa insha Allahu tacaala baayihiina wixii aanu ka qaban karno heer gobol ahaan wixii aanu ka qaban karno waanu ka qabanaynaa wixii naga facweynana heer qaran iyo xukuumadda sare gaarsiin doona insha Allahu tacaala waxaa isaguna sidoo kale halkaasi ka hadlay xogayaha fulinta dawladda hoose ee Berbera Suhayb Maxamed Cali ayaa isaguna tilmaamay in dawladda hoose ahaan ay kaalintooda ka qaadanayaan adeegyada kala duwan ee ay u baahan yihiin degmooyinka iyo tuulooyinka hoos yimaada gobolka Saaxil waxa iyaguna sidoo kale halkaasi hadallo kala duwan ka soo jeediyay mas'uuliyiin ka socotay hay'adaha laamaha dawladda oo mid waliba uu ballan qaaday inuu doorka uu leeyahay uu ka qaadan doono tuulooyinkaasi socdaalka lagu marayo gudoomiyaha gobolka Saaxil iyo waftigiisa ayaa intaasi kadib waxay u kictimeen dhinaca degmada Godaweyn iyo tuulooyinka hoos yimaada oo degmada Sheekh kaga beegan dhinaca galmeed waxaana kamid ahaa tuulooyinkaasi uu socdaalka ku marayay ee hoos yimaada degmadaasi Godaweyn halo girni Godayar Godaweyn diri maraabiye fariisinka ila armo dhamaantoodba kamid ah degmadaasi Godaweyn waxaana ay dadka ku dhaqan deegaanadaasi ay si weyn u soo dhaweeyeen waftigaasi uu hogaaminayay gudoomiyaha gobolka Saaxil iyagoo sidoo kalena ugu xog waramay xaaladda guud ee deegaanadaasi waxaana ay tilmaameen ay guud ahaanba ay deegaanadu rooban yihiin waxay sidoo kale ay ka cawdeen dadkaasi ku dhaqan deegaanadaasi hoos yimaada degmadaasi Godaweyn dad ay tilmaameen in ay dhirta ay shidaan isla markaana ay ka dhuxulaystaan iyagoo tilmaamay in ay dadkaasi ay shidaan dhirta ay xooluhu daaqaan isla markaana loo baahan yahay in tallaabo laga qaado isla markaana sharciga la hor keeno waxaana xukuumadda u soo jeediyeen in ay ka taageerto sidii dadkaasi loo soo qaban lahaa waxay sidoo kale dadka ku dhaqan deegaanadaasi ay ka cabanayeen dad ay ku tilmaameen inay oodaan dhul daaqsimeedka ay xooluhu daaqayaan loona baahan yahay in wax laga qabto taas oo ay ku tilmaameen caqabad haysta deegaanadaasi buurta silsilada Golis ama gacan libaax ee koonfurta kaga beegan degmadaasi Sheekh waxa kale oo iyaguna halkaasi hadallo kala duwan ka soo jeediyay dadka deegaanadaasi iyo waliba madax dhaqameedyo Soomaaliyeed gudoomiyaha socdaalkaasi ku wehelinaysay oo dhamaantood baa soo jeediyay in wax laga qabto dadkaasi iyagu dhirta shidaya ama ka dhuxulaysanaya
isla markaana tallaabo sharciga waafaqsan laga qaado gudoomiyaha gobolka saaxil iyo isuduwaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka ayaa sidoo kalena dhagax dhigay dugsiyo kala duwan oo dhismayaashooda laga hirgelin doono tuulada Dowdama iyo sidoo kale degmada Godaweyn isla markaana wasaaradda waxbarashada Jamhuuriyadda Soomaaliland ay hirgelin doonto socdaalkan gudoomiyaha gobolka saaxil ku marayay degmooyinkaasi Sheekh iyo Godaweyn ayaa daba socdaal kala duwan oo gudoomiyuhu ku gaala bixinayay deegaanada kala duwan ee gobolka saaxil Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud telefishinka qaranka Soomaaliland Berbera